Okay, inshallah caawa waxaan ka hadlaynaa laba qodob. Labadaas qodob waxaa waaye probis iyo waxaan ka hadlaynaa inshallah iyo children waxay yiraahdeen. Marka labadaasaan focus ka saari doonaa inshallah, waana kulli waa soo gaabinaynaa. Kulli meesha haddaad fiiriso waxaa yeelaan magacyo isku mid ah. Marka taski walba waa taskeeda dhan waa isku wada mid, waa isku wada magac, maadaama aanan wax probis dhan aanan ka hadlin saa darteed aan uga tilaabsaday maanan isku sii shuqlin. Marka caawa inshallah marka probiskan iyo children waxay yiraahdeen aan isla fiirinaynaa, deetana haroon u soconaynaa inshallah. Okay, marka halkan waxay noo yaalo code aan habeen hore sameynay. Marka kulli hadda uma baahni, waan iska masaxayaa folderkan, deetana halkan ama waxaan sameynayaa folder asiga la mid ah ama components deetana folderkan waxaan rabaa inaan ku sameeyo my app ama wax saas oo kale ta kulli probis aan rabnaa inaan xoogaa yar sharaxno. Okay, marka sxc or waxaa adiga markaas snippet ka isticmaali karto isticmaal. Halka marka waxaa leeyahay my app. Marka arrow function iyo labadaba waa isticmaali kartaa, functionka regularka ama caadiga ah labadaba waa isticmaali kartaa. Okay, marka halkan waxaan soo import gareynayaa react, that's it. Marka inta marka waxaan keenaynaa h1 of hello, just that, and then inta marka waxaan leenahay waxaad soo import gareysaa my app, then my app. Marka halkan shardi ma in magaca uu isku mid ahaado functionka, laakiin hadduu functionka default yahay asigaa simple la isticmaali doonaa. hadduu doono inta small uu ahaan karaa ama capital uu ahaan karaa, laakiin marka tag oo custom aad samaysid ama component aad samaysid, componentgaas markii loo yeerayo waa qasab inaad ka dhigto xarafka koowaad capital, inta kaleeto small ama waxay doonaan baa ku ahaadan. Okay, marka kaasaan paste ku leeyahay, deetana marka waa aragtaan hello sidaas ku soo baxday. Marka waxaan rabnaa waxay yiraahdaan probis. maalmihii horeeto hello mii maqshaan hello ay okay, maalmihii horeeto waxaan sameynay function, waxaan maalmihii aan bibleka iyo jsx waxyaabahaas aan ka hadlaynay. waxaa jiray functionkaasoo 3 parameter lahaa. 3 parameter waxay ahaayeen midna wuxuu ahaayee tag nameka iyo options iyo childrenka. marka probiska lagu sheegayo wax kale ma ahan. childrenka markaa kasoo tagtid oo tagana kasoo tagtid tag nameka, waxaa soo haray optionskaas iyo muxuu ahaayee probis waa isku mid macnaa. Okay, probis waa bartii optionska uu ku jiray, wax kaleeto ma aha. kulli inaad ila fahmaysaan rajayna. Okay, marka hadda taggan halkan yaallo haddaan muxuu ka kooban yahay, haddaan u bedelayno magaciisii barnaamijkii functionka loo bedelayo shayga oo ahaa key bubble uu lahaa ama create element oo kale, marka u bedelayno muxuu noqonayaa hello muda ku wada jirtaa. marka wuxuu noqonayaa Soomaaliya create element, deetana element kadibna wuxuu noqonayaa tag nameka oo noqon karo macnaha kulli functionka markii la rangaray wuxuu soo celiyay unbuu tag noqonayaa. marka macnaha jelliga ugu ama rootka ugu horeeya macnaha hadartan h1 ugu horeyso, h1 kaas uu noqon doona macnaha. marka halkan waxaan leenahay h1 deetana probiskan ama optionskan kulli waa wax halkan galay. marka hadartan wax halkan kuma jiro, maxaa halkaas imaanayo null, macnaha waxba kuma jiraan ka dhigan tahay. kan saddexaadna maxaa waaye childrenka maxaa ku jiro hello ama wax saas oo kale ku jiro. marka haddaa halkan aan gelino name oo kale haddaan dhahno kaba soo qabo name oo kale haddaan dhahno means maxay ka dhigan tahay
كل يابين دحدث واركتنا رجينا waxay ka dhigan tahay adigoo halkan ku sameeyay magaciisii name variable just like that attribute noocaas adoo ku sameysay deetana wixii halkaas lagu shubo ayaa ku shumi doon marka dartan calibrateska markaan furto ma aha objectiga macnaha directly object as name objectiga wuxuu noqon doonaa markii calibrates kale to gudaha markaad furto markaas kan waxa lagu shubi doonaa object okay laakiin haddaadan object furin means waxay ka dhigan tahay meeshan waxaan keeni doonaa variable call ama function call ama lambaro ama operation iska caadiga ah xisaabaadka sidaan keeni rabaa ka dhigan tahay marka maadaama saas muxuu ahaaye calibrates marka saasaan u furanaynaa marka halkan waxaan keeni rabnaa kaba soo qabo waxaan keenay string name markaan dhaano maxay noqonaysaa halkan kan waa laga masixi doonaa wuxuu noqon doonaa name-ka caadiga ahaa ama halkan haddaad ka dhigtid kaba soo qabo cali halkan waxaa imaan doonaa cali that's it okay sidaasay ka dhigan tahay marka probis kulley waa optionskii caadiga ahaa optionska iyo probis waa isku mid marka name-ka halkan markaad gelisid ama parameters halkan markaa u samaysid ama attributes kulley html-ka waa xasuusanaa meeshaan attributes la keeni jira ama class name style class ama style ama id ama waxay kala garanayso attributes aha marka attribute halkan imaanayo haddii loo baahan yahay in laga dhex aqriyo functionkan gudihiisa waxa halkan ay ku qasban tahay in la isticmaalo object okay halkan marka parameter aan u sameynana waxaan leenahay probis okay probis ama waxa doonta u la bixi kartaa waxa dhigi kartaa names ama anything okay marka magaca common-ka ah waxa waaye probis ama properties okay properties means waxa halkan laga soo gelinayo waa properties macnaha marka kan markaan furno maxaa halkan imaan doona kan muxuu noqon doonaa marka kan wuxuu noqon doonaa maadaama aan hore u naqaanay muxuu ahay functionkii ahaa saddexda parameter qaadanaya oo midka godka labaad u ahaa magaciisii optionska simply object ahaana loo keenaa marka directly marka kan waxaa ogaataa inuu object yahay okay hadda baan download waxaa soo saartaa probis okay probis safe okay browserka okay I think inuu refresh u baahan yahay okay halka markaa fiirisid maxaa halkan yeelo waa functionkii waxaan aqrinay ama console garanay probiska waxa halkan la keeni doono parameterkan waxa lagu soo shubi doono meeshan waxa la keeno waxa lagu soo shubi doono aan halkan yani console garanay marka halka hadda fiiriso maxay imaaday objectigaas maxaa ku jiro hal attribute halkaas attribute muxuu yahay ama hal property oo ah name-kaas oo ku jiraan cali marka sadarteed waxaa ku xisaabtamaysaa mar walba oo tag ahaan iyadoo tag in la furo deetana halkan parameters lagu soo shubo halkan waxaa imaan doona objectigaasna maxaa ku dhex jiri doona calooshiisa attributeska halkan yaalo dhan haddii badan yihiin haddii yar yihiinba halkan haddaan lacala ku daro kaba soo qabo age oo kaleeto aan dhaho age maadaama ay lambarta halkan lambar miskaga qori karo okay sadarteed maxaan ku qasbanahay koley jaysakiska waxaan furaynaa calibrates markaas kadib aa tirada gelinayna laakiinse string haddii tahay uma baahna calibrates okay string caadi hadduu yahay calibrates uma baahna laakiin haddii waan sheegnay waxay ahaayeen haddii variable wax laga soo akhrinayo ama function la call garaynayo ama operation caadi la samaynayo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin calibrates laakiin stringiga uma baahna laakiin waxaa u baahan hal kamida u baahan waxaa waaye template literal markaad furtid means wuxuu u baahan yahay calibrates inaad dhexgeliso okay calibrates markaad dhexgeliso uu kuu shaqayn karaa laakiin template literal oo bilaa calibrates ma kuu shaqayn karo okay marka halkan waxaan rabaa inaan tirooyin keeno kaba soo qabo 21 camal aan geliyo safe aan leenahay okay halkan marka maxaa yimid objectigii oo adartaan qurux badan maxaa halkan ku jiro name iyo age-ka waxaan ku soo shubnay marka probis macnihiisa guud waa noocaas marka muxuu faa'iido leeyahay marka okay faa'iidadu leeyahay waxa waaye in
componentiga aad samaysatay component is just function kan macnaha meeshan yaalo waayo iyo waxa ku dhex jiro oo dhan marka componentiga halkan ku yaalo in behaviorkiisa ama dabeecadiisa wax laga bedeli karo ayadoo la isticmaalayo outside data macnaha ma ahan datada ku jirto functionkan gudihiisa kulley waa arki doonaa sida loo bedelo state iyo waxyaabaha la midka ah laakiin outside markii wax laga bedelayo oo functionkan la rabo in wax laga bedelo ayadoonan gudihiisa lagu jirin banaankiisa in datada ku jirto functionkaas in wax laga bedelo dii loo baahan yahay probes ahaana loo soo gelin doonaa marka halkan waxaan rabnaa inaan halkan xogta marka halkan ku jirto maxay noqonaysaa object probes object way simply marka objectigan wuxuu ka kooban yahay waxa halkan la soo geliyo haddii aad halkan ka dhigatid weight oo kaleeto weight haddaa dhahdo oo 75 camal aad tiraahdo same way weight objectiga waa lagu soo daray oo probeska waxaa ku jiro name iyo age iyo weightka macnaha wax allaale sidaad u qortid oo dhan halkaasi saas kusoo geli doonaan qodobkaas ma ilaahaysan maxaa kaloo lagu dari karaa waxaa kaloo lagu dari karaa kaba soo qabo hadda waxaan gelinay name iyo age iyo waxaan gelinay iyo muxuu ahaaye iyo muxuu ahaa iyo weight aan gelinay kaba soo qabo waxaan dhihi karnaa is taller okay saan samayn staller okay marka staller ma dheer yahay macnaha okay false aan dhahnay kaba soo qaad false macnaha false waa yacni keyword jiro oo yani oo ka mid ahaa boolean literalska marka sidaa darteed muxuu u baahan yahay calibrates u baahan yahay okay marka kanna maxaa lagu soo dari doonaa objectigaas oo probes waa ujeedaan staller false aa lagu soo daray soo ma jeedaan okay laakiin suuragal maa inaad calibrates ka reebtid aad tiraahdo sidaa darteed false ama true ama waxay kaleeto sidaas la mid ah okay keep that in mind marka halkan waxaan kusoo darnay muxuu ahaayey calibrates waxaan kusoo darnay staller oo boolean ah maxaan kaloo ku dari karnaa waxaa kaloo ku dari karnaa kaba soo qaad function aan ku dari karnaa halkaan aan function ku samaystay waxaan dhahay const calculate kaba soo qabo calculate and his kaba soo qabo his maxaa dhigtaa okay ama function kulley symbolize ka samey waxaa tiraahdaa add camal oo kaleeto kulley functiono badan ma hayno maskaxda functionkan oo kaleeto haddana rabaa inaan ku daro functionkan laba qaab boo ugu dari kartaa functionkan kaba soo qabo wuxuu soo celinayaa return ama returnka iska masaxo halkan 2 plus 3 oo kaleeto labada functionka markii la gool kareeyo muxuu soo celin doonaa 5 soo celina soo marka sidaa darteed halkan haddaad tiraahdo kaba soo qabo added 2 and 3 oo kaleeto okay waa probes ahaanaan u sameeyay soo ma jeedaan okay marka halkaan haddaan dhaho kaba soo qabo add haddaan dhaho means functionkii oo dhan la baas gareeyay laakiin haddaan dhaho haddaan call gareeyo muxuu sameynayaa functionka laga shaqeynaya datana resultigiisa halkan lagu shubi doonaa marka halkaan haddaan safe dhaho halkaan waxaa soo baxayo functionkii resultigiisa halkaan muu jeedaa added 2 and 1 and 3 soma maxay noqotay 5 laakiin functionka haddaan calling ka reebo kulley waa ogeedeen functionka in la baas gareyn karo okay halkaan maxaa si toos loo keenay functiona caadi loo keenay soo ma jeedaan functiona loo keenay marka sidaa darteed kan function waa dhowt calling uu kaaga baahan doonaa si wixiisa loo arko marka that's marka waxaa waaye probes waxyaabaha la xiriir noocadan waay marka halkaan int maragtan hallo maadaama halka haddaad fiirisaan waxaan kulley functionkaaga ama componentigaada datadu qaadanaya simbir waa garanaysaa okay data aadan garanayn kulley meelo umaadan samayseen ama tag meelay displaygeeda maadan samayseen macnaha marka sidaa darteed datada maadaama aad garanaysid waxaa halkan habboon inaadan dhihin qaabkan waxaa ka fiican inaad isticmaasho destructure directly inaad ku samaysid waayo halkan maxaa la keeni doonaa object halkan la keeni doona sooma intaan dhan waa object sooma object ay ku jiraan propertieska macnaha okay intaan dhan waa object ay ku jiraan propertieskan oo dhan
marka saa darteed halkan calibrates haddaad furto oo aad tiraahdo name waxaa kaloo lii keeni doonaa age waxaa kaloo taan qaadan doonaa muxuu ahaaye weight okay weight iyo weight iyo is taller iyo muxuu ahaaye mid kasta kaleeto functionkan ahaa isagana inaad keento that's it directly the structure aan kusoo sameeyey macnaha okay marka halkaan haddaan dhahno name soo akhri save okay directly waa kana soo u muuqdo waa name wixii ku jira cali uu ahaa haddaan iraahdo age soo akhri sidoo kale weight soo akhri sidoo kale waxaa soo akhrisaa is taller save ma halkan soo bixi doono iyagoo dhan mid walba wax ku jiro way soo baxayaan macnaha marka destructure kulley waayadu waan ka hadalnay destructure aan kusoo sameynaa hadartan okay marka intaan dhan wax walba u qaadanaya destructure aan ku sameyn marka tan faa'iidadii leedahay waxaa waaye kullama kulley editorkii ku xiran tahay markaas sidaan oo kale u sameysid wuxuu expose gareynayaa ama qofka yacni datada ku shubaya ama meel kale marka aad data uga soo shubayso waxaa macquul ah inaad ilowdid variable nameskan okay marka saa darteed saa u xasuusnaatid ama aad u aragto meesha aad wax ku shubayso waxaad isticmaali kartaa nidaamkan inaad tiraahdo waxay kaa saamaxaysaa halkan haddaad tagto oo aad tiraahdo name directly editorkaada uu ku caawinaya wuxuu ku leeyahay name waa kana saas uu qoran yahay marka aad hadhowtii ma qaldaysid macnaha ama ma isdhaysid tusaale waxbaa soo samaysay meel waxaa samaysay profile yaraa samaystay oo first name iyo last name iyo waxa saas kale tahay marka aad hal meel ah waxa u samaysaa ama hal attribute ku shubeysaa ugu talagashay inaad ku wada shubto name oo dhan macnaha saas oo kale ugu talagashay marka datada aad haysatid oo ama JSON aad ama meel kale aad ka soo akhriso first name iyo last name iyo waxaas oo kale leedahay waxaa laga yaabaa marka inay waqti kaa qaadato inaad functionkii ama functionkii aad soo samaysay inaad dib ugu laabatid aad soo firisid propertieska uu qaadanaya inaad soo firisid waxaa kaaga haboon inaad nidaamkan oo kale aad samayso kan wuxuu kuu saamaxayaa name ma qaldi doontid ma ku qaldaysid first name ama last name mu ahaa waxaas kale confusekaas oo dhan kuugu imaan doono marka halkaas haddaad tirahdid name directly waxaad halkaas gashan doontaa wixii nameka ahaa okay ali halkan age haddaad tiraahdo same way asagana tiradii aad gashan doontaa sidoo kale haddaad tiraahdo kaliya haddaad bilowdo ama control space haddaad tiraahdo waa fiirin kartaa functionkan wax walba uu qaadanayo clear functionkan ama componentigan datadu qaadanayo ama wax walba uu qaadanayo waa arki kartaa halkan key kolley waa ka hadli doonaa wuxuu u taagan yahay markaan listiska iyo waxyaabahaas aan ka hadlayno marka kolley waa elephantine rajina nidaamkan okay marka okay safe aan leeyahay inta ma rabo marka waxaan rabaa wax yar inaan ku daro kulley probis noocadaas waay waxaa laga yaabaa halkan kaba soo qabo waxaan ku haysanaa conist ama list aan halkan ku haysanaa ama halkan aan keeno waxaan haystaa kaba soo qaad file json ah ama kaba soo qabo data.json okay data json aan halkan ku haystaa marka datadan jasonka ah waxaa ku jiro kaba soo qaad objectgan wuxuu leeyahay aan iska fududayno namekan waxaa ku jiro cali sidoo kaleeto age ayuu leeyahay okay age deetana waxaa ku jiro 20 sidoo kale wuxuu leeyahay weight okay weight ayadana waxaa ku jiro 75 noocaas ku jiro okay marka intaan safe aan leeyahay waxaan rabaa datadan inaan halkan kasoo aqriyo intaan keeno symbol halkan aan soo import garanayo waxaan leeyahay import data from dot this data.json macnaha kulley fileka hadda ku jiro dotkan waxay ka dhigan tahay waa yacni linuxka laba folder ku sameeya folder walba oo firaaqa ah hadda kama soo qabo halkan inta haddaan tago intoo kaleeto folderan lacag inta ku sameeyey waxaan dhahay new folderkan waa is-invite dartaan gudihiis wax kuma jiraan laakiin laba folder ayaa ku dhex jirto labada folder waxay kala yihiin midna wuxuu hayaa datada filekan ama folderkan hadda lagu dhex jiro midna wuxuu hayaa folderka ka gadaalaya macnaha halka haddaan ku dhufto aan console aan editor balkan ku furmay folderka waa kana soo jeedin okay
waa kana asiga terminalkan ku furay hadda haddaan dhaho ls symbol waxba ima tusinayo laakiin ls-a wax walbo qarsoon waa kuwana foldaradaan aqalsan laba foldar waaye waa dot iyo dot macnaha dotkan wuxuu sheegaa this folder double dotna waxay sheegtaa folderkan folderka ka gadaalaya tilmaamta macnaha waa direction labadooda okay marka halkan marka waxaan dhahay dot this folder filekan haddaan wax ku dhex qorayo folderkiisa waxaa ku dhex jiro filekan iisoo akhri macnaha marka filekan haddaan wax ku dhex qorayo waa kana folderkuu ku dhex jiro waa component file ku jirana waa data.json macnaha okay marka datadana waxaa rabaa marka inaan halkan aan kusoo daabaco symbol waxaa halkan sameysanaya kaba soo qaad function waxaan samaystay ama component waxaan sameysanaya component const okay const person ama user waxa doonta ula bax ama okay person then person kan waxaan leenahay return wuxuu soo celin doonaa eraade div kan waxaa ku jiro kaba soo qabo span okay span then name deetana namekaas waxaa ku hoos jiro kaba soo qabo waxaa ku hoos jiro name waa labelkii macnaha iyo span kaleeto span deetana waxaa leenahay waxaa halkan la keeni doono halkan marka maxaan uga baahannahay halkan name aan u baahannahay halkaan aan keensanaa name sidoo kale waxaan u baahannahay age sidoo kale waxaan u baahannahay weight macnaha intaasoo xog ah ayaan u baahannahay marka halkan kan wuxuu qaadan doonaa name okay waxaa ii xigi doono br marka sidaan oo kaleeto hal mar waa qoraya laakiin waa hagaajinaynaa okay break sameno br okay line-kan inuu kasoo gudbaa rabaa macnaa isbaanka waa isla ag dhigmaa sooma okay marka sidoo kale waxaan rabaa marka label kale waxaa halkan samaystay age oo kaleeto la yiraahdo agena halkan waxaa lagu soo shubi doonaa age macnaa kan waxaa rabaa labelka soo muujinaya kan waxaan ka rabaa waxay kasoo muuqanaya marka double column iyo sidoo kale halkan waxaan keenay muxuu ahaayey weight macnaha weight okay the name asigna iga soo qaad intaasoo kale halkan keenay marka qaabkan kulley waa bad practice waaye sidaan inaan wax u qorno waan hagaajinaynaa insha allah marka intaan soo koobiyeynaya waxaan tagayaa halkan waxaan leenahay paste namekan soo koobiyeysanaya halkan aan base ku leeyahay waayo waa component gooni ah waaye kan hadda saa ujeedaan okay marka halkan waxaan u baasayaa datada marka maxaan leenahay name waxaan ku shubi doonaa data dot name sax okay sidoo kale waxaan ku shubi doonaa age ayadana maxaan leenahay data dot age sidoo kale waxaa jiro weight ayadana waxaan leenahay data dot weight sooma dot weight intaas markaan ku shubno aan safe dhahno browserka waxaa kasoo muuqan doono wixii halkaasaan ku shubnay soo ma jidan name oo cali ah age oo 20 ah weight oo 75 waadix marka niyadda ku hay qaabkan wax looma qoro hadda halkan fiiriso redundancy fara badan aan sameyn waxaa jiro kelimad yar oo la yiraahdo dry macnaha dry macnaha waxaa loola jeedaa don't repeat sameno repeat صح sameno b for book يعني okay repeat don't repeat yourself معناها okay don't repeat yourself معناها waxaa loola jeedaa wax kale ma ahan means code aad hore u qortay hadana soo celcelin halka aad fiirso intaan labadan waa isku mid soo kaliya data un bay ku kala duwan yihiin laakiin waa isku nooc sax isku qaab waaye PR oo dhaxaysa ayaga marka kan waa principle kamid ah principalada software development marka function ama shay hadaad qorto
inaad haddana dib u qorto qalad waayo. Okay, marka waxaa samaysaa intaan function gooniyaan ka dhiganaa ama component gooniyaan ka dhiganayna. Kanaan koobiyeynana kadaan leenahay waxaan leenahay const okay waxaan leenahay kaba soo qabo display kulley xogta waxay soo muujinayo waaye asiga waxaan leenahay that then return wuxuu soo celin doonaa if ay ku dhex jirto labadan. Okay, marka labadan maadaama br uma baahnin maadaama diff aan keenay diffka new line uu symbol sameeya labadan markay isku xiranto new line uu symbol sameyn doona. marka halka hadda fiiriso labadan waxay u baahan yihiin laba data u baahan yihiin labelka iyo waxa loo baahan yahay maadaama labelkan inuu isbedelaan rabaa reusable uu noqdo. sadarta halkan waxaan leenahay label iyo waxa kale u baahanahay value. Okay, labelka iyo muxuu ahaay kulay qofka agtiisa buuxo ku jira iska xirey. marka waxaan halkan u baahanaa marka labelka iyo value-ga macnaha. Okay, hello okay, labelka iyo waxaan u baahanahay value. marka halkan label aan ku soo shuban doonaa intana waxaan ku shubanaa value. Okay, labadaba waa noocaas macnaha. marka kanaan soo qabanaynaa halkaan tagaynaa waxaan leenahay intaan dhan uma baahnin deetana halkaan waxaan ku bedeli doonaa taas display. Okay, displayga saddex goor aan u baahanahay saddex data soo display garabna. marka halkaan waxaan leenahay label waxaan noogu shubaysaa name deetana halkaan value-giisa waxa waaye name. That's it. Okay, name. sidoo kale halkaan waxaa noo yaalo label kale labelkaas waxaa ku jiro laba shay oo ah waxaa ku jiro age wuxuu kale u baahan yahay age macnaha value-giisana maxaa waaye age. Okay, sidoo kale haddana halkan waxaa ku jiro label kale oo ah weight. Okay, weight ayadana value-giis maxaa waaye weight. That's it. Okay, waa isku mid macnaha hadda waxaan ka saarnay meesha br ka waan ka saarnay wax badan hadda ma soo celcelin. marka hadda haddaan rabo inaan styleka ay waxaan u muuqanayo haddaan rabo inaan bedelo very simple waaye waa aad u sahlantahay. hadda kaba soo qabo meeshaan laba dhibcaan rabaa inaan u dhaxaysiiso daad waxaan ku qasbanaa isbaan walba oo labelka ah inaan laba dhibcaan soo geliyo laakiin hadda simple halkan un baa laba dhibic gelin doonaa safe ayaga dhan labada dhibic qaateen soo jeed. Okay, marka don't repeat yourself ha ku soo celcelin waxa aad adiga inaad dib u qorto looma baahan mar walba function kule isticmaal. Okay, waadix. marka halkan haddaad fiiriso wax badan oo daalaa jiraan hadda aad u fiiriso meeshan halka haddaad fiiriso waxaan soo celinay halkan waxaa lagu soo shubay name halkan property noo yaalna waa name kan age lagu shubay property halkan noo yaalna waa age weight lagu shubay property halkan noo yaalna waa age waa weight macnaha. Okay, simple haddaad hubto data halkan taalo iyo propertieska meeshan gudaha aad ka isticmaalayso haddii ismaaj garaynayaan. Okay, property-ga halkan aan ku isticmaalayo iyo propertieska uu leeyahay datada aad akhrinayso haddii ismaaj garaynayaan simple waxaad isticmaali kartaa inaad tiraahdo intaan dhanna iska masaxdo. Okay, iraade intaan dhanna iska masaxdo muxuu ahaay sheekadan dhanna iska masaxdo yaad waxaad dhigi kartaa calibrates destructure data. Okay, data waa objectgaas waxaa ku jiro saddex attribute halkaana wax walba lagu shubana muxuu ahaa probiskana muxuu ahaayeen objectii aan soma objectiga destructure lagu sameeyey datadana halkaas loogu shubo. marka hadda safe hadaan iraahdo very same data صح؟ yes qodobkaas meelaasan marka very simple way kam marka muxuu ku imaanaya hal mar inaad in xoogaa aad sawiran kartaan rajayna in muxuu ahaay maskaxda inuu ku sawirmayso sida waxaan u dhacayaan halkan waxaan ognahay wax walba halkan imaan doono object in la gelin doono sadarteed objectigan waxa ku jiro iyo datada anaga aan rabno oo aan functionkeena ama componentigan uu akhrisanayo waa isku mid sadarteed isku magac waa macnaha okay isku magac waa halkaan dad fiirso name intana name and royal age weight
same way marka saa darteed intaad yani had coding fara badan aad samayn lahayd kaba soo qaba halkan haddii kaba soo qaba intaad yaalaan dhowr iyo 10 properties inaad saan u qorto adigana dhibaato kugu ahaan lahayd marka simple waxaa samaysaa qaabkaas okay haddaad doontana waxaad samayn kartaa inaad kan dhan iska dhaafto iyaad waxaad dhigi kartaa data datana waxaa halkan kusoo shubi doontaa data simple datana halkan waa bedeli doontaa okay halkan waxaa u bedelaysaa data okay ama magaca doonta ama probis ba dhaho okay probis kadibna gudihiisa inaad gasho ayaa waxaad dhigi doontaa const structure ku samayn doontaa si halkan kuwan ay u isticmaalaan halkan marka waxaan dhigi doonaa name age iyo weight okay kadibna probis waayo probis waxaa lagu soo shubi doonaa data marka halkan magacaan iyo magacaan shardi ma aha inay isku mid noqdaan maadaama aan probis isticmaalin marka shardi ma aha labada magac inay isku mid noqdaan laakiin haddaa structure aan ku samaynano waa shardi inay isku mid noqdaan hadda safe dan dhaho same data okay something is changed okay waxbaa isbedelay okay bal hal markan aan loo garayo log probis save probis yes sorry halkan maadaama objectiga la keenayo marka waxaan ku qasbanaa inaan dhan halkan ay raadi data okay save then datadina saasay ku timid macnaha waayo halkan waxaan keenay property marka objectigii ku wada jiraan objectigaas data ku jirto datadaasna waxaa ku jiro datada halkan ku jirto waxaa cfm hello ما الفهم ياخذ بس حوغا وبوسينيا بل قبا داد يعني واركتو waxaan fahmin okay marka halkan waxa iga fudud inaan isticmaalo noocaas inaan isticmaalo oo halkan ay raado di structure directly ku soo samay wax walba halkaas ku jiro halkan ku shub datana halkan ku soo shub safe that's it okay probis marka qaabkan way qaabkan waxay tahay waxa soo qaadatay objectna soo qaadatay waxa uu ka kooban yahay property iyo value property value soo kooban yahay wuxuu sameyn doonaa miya property u horeeyo wuxuu ku aadin doonaa parameterka u horeeyo may wuxuu sameynayaa kulli hadartan kuwan hadda saan u order gareysan laakiin kan haddaan hoos keeno halkan komada ingiliis intaan aan ka saaro name ugu hooseyso ma same data wax yani isdhaafay ma laha mar walba waxa la isticmaalayo waxay tahay halkan objectigan data wada soma datadan structure ku sameeyay hadda kaba soo qaba intaan tago inta waxaan ku sameeynay kaba soo qaad function inta ku sameeynay waxa lana const get data okay data get data markaan dhaano waxa lana function kan wuxuu qaadan doonaa data oo ay ka kooban tahay name age iyo muxuu ahaaye waxa kale maxaa waay weight kaba soo qaad weight saddexdaas aan dhaanay datana gudihiisaan galay log waxaan loo garaynayaa datadan oo dhan okay marka intaan soo koobiyanayaa paste aan halkan ku leeyahay soo ma jeed marka halkan inta markaan tago aan raado get data function kan fiir markay function kan waxaa rabaa data inaan pass gareeyo data maadaama ay object tahay halkanna uu ka rabo magaciisa object oo structure lagu soo sameeyay marka halkan waxaan leenahay directly wax walba oo halkan ku jiro data halkaas ku shub marka objectigan structure ku sameeyno macnaha okay structure ku sameeyno halkan muxuu ku shubi doonaa marka wuxuu ku shubi doonaa asagoo yiri macnaha saanay ka dhigan tahay asagoo dhahay data and I rather name so name data dot name saasoo kala soo ugu shubay kamid tahay okay marka structure qaabka noocaas ah waay okay halkaan marka data aan iri save symbol saasoo ku soo baxsan jid marka tan iyo waxa isku mid ah kulay in structure kulay waa la fahansan yahay rajaynayo oo qaabka structure ku shaqeeyayo waxaas oo kale marka
shardi ma aha in aad name hadda labadan attribute ama labada ha mid walba midka uu ku magacayo ku aadinaya macnaha labadan yani haddii isku magaciisii isku properties yihiin propertiesyada magacyadooda haddii same ka yihiin waxaa ku fudud inaad nidaamkan oo kala isticmaasho ama aad yani nidaamka noocaas kusii daydo ama inaad tiraahdo name kulley redundancy fara badan kugu noqon doonaa data dot name inaad haddana tiraahdo age dot data dot age saasoo kale inaad ku wado aad u adag tahay tana aad kaaga fudud inaad tiraahdo destructure inaad ku samayso tiraahdo dhammaan datada halkaa kusii daa okay marka waa ila fanteen rajeynaa qodobkaas hello okay marka simple data markaad rabto inaad yani aad baasgarayso waxaad isticmaali doontaa data probis qodobka waxaa ula jeedaa probis waxaa loo isticmaalaa in outside of the component in datadiisa laga bedelo okay componentigan sida xogtiisa u muuqanayso waxaa manage gareynayo outsidekiisa waxaa ka manage gareynayo person component asigan datada ka muuqanayso waxaa manage gareynayo componentigan kaleeto okay marka probis macnaha maxaa loo isticmaalaa in componentiga datada ku jirto in wax laga bedelo ayadoo laga isticmaal data bedelkaas laga sameynayo outside of that componentkaas banaankiisa ayadoo datada laga bedelayo unbaa loo isticmaalaa probis okay haddii laakiin componentiga gudihiisa wax laga bedel rabo simple kulli waa arkeynaa okay kulle state iyo waxyaabaha lamidaan arki doonaa markaas waadix waa sooma xoogaa youtube-kaga jira anyone nasin marka yeah سامع لك السفودة كره example هذا person ديت كانت person كأو ديت كوسمينا إني تذكر بدانا نجاح لا مين كل كيس تكرر وحي ديتا وماشي سكسو أقصدي هل مريج له هذا كان محايس تماما دي تاتو حق سأقصنو سيستم كله صح ما حق سأقصنو صح كذا جيسون ها ألقى structure كسمينيس سفينة هذا أد وبرضه إن structure كسمينيس ما كان يسمك أو تنادي بدنتها هذا دي هذا سدحنا حبوا تقانا صح إيش يبي أقريه هنا أبتعي إني بطان أما إني ريست سين طان حتى ولا يا ما هنو سفينة أرجع سوق حالي أوكي كل list وأركينا لكن شيء كل function هذه كل waxay ku xiran tahay waxaad sameynaydo umaleemayo datada aad halkan structure-ka ku sameynayso ama datada uu component-gaadu u baahan yahay inay ka badan tahay 10 attribute inuu ka badan karo umaleemayo kul 10 attribute wax ka badan umaleemayo inay jirto laakiin celcelis 10 data amal dheh waxa sameyn kartaa mid kala sameyn kartaa halkan haddaan ka tago aan dhaho kaba soo qabo probis aan dhahay okay intaan disable yidhe intaan mar raba inay soo muuqato halkaana marka waxaan leeyahay probis marka commentingna kulli waa aragtaan calibrate suu geliy gudihiisa markaas comment ka sameeyey okay marka baalkan wuu ku caawin doonaa kulli baalka IDE gaad isticmaalayso marka halkan kaba soo qabo waxaan yidhi log probis save halkan waxaa soo baxay wax walbo data ku jiro dhan halkaan uu ii keeno soo ma صح objectigan iteration ku sameyn karnaa object iteration waa lagu sameyn karaa soo taas waa naqaanaa sax object markaa iteration ku sameynan maxaan sameyn jirnay laba nooc baa isticmaal kartaa inaad tiraahdo object ama object caadi inaad isticmaasho kadibna keys aad tiraahdo deetana objectiga keyskiisa inaad caadi uga soo akhristo ama mid yiraahdaan entire I think magaca noocaas inuu lahaa malena kale way badan yihiin objectigan yes interest macna interest haddaad tiraahdo muxuu qaadan doonaa haddaad fiiriso wuxuu halkan qaadanayaa object okay object haddaan halkan dhahno object ama probis aan yiraahday probis deetana muxuu soo celinayaa asiga halka haddaad fiiriso wuxuu soo celin doonaa okay string
oo name-ka property-ga ah iyo key iyo value ku jiro macnaha bal aan fiirino bal intaanan koobinaya cut paste save inta da fiirs muxuu keenay string wuxuu keenay list ay ku jirto mid walba kaliya wuxuu u bedelay object-igu wuxuu u bedelay mid walba list u bedelay okay property walba wuxuu bedelay list macnaha intaasna waa hal array ku wada jiraan kaliya wuxuu sameeyay meel walba oo property ahaana wuxuu ka dhigay property iyo value walba wuxuu isla geliyay list wada geliyay okay kaas waa la isticmaali karaa laakiin kan xoogaa in uu ku yaraa koodkiis ku farabataa laga yaabaa laakiin waxaa isticmaali kartaa object dot keyska marka kan wuxuu kuu soo saarayaa listigan oo objectigan wax walba oo key ku jiro keyga kulli waa naqaanaa waxaa waaye waa magacyadan sooma key waa kuwaan oo dhan macnaha key iyo value ahayn sooma okay marka keyskoo dhan uu kuu soo aqrinaya marka waxaan leenahay probis keyskiisoo dhan iisoo aqri kanaan loo garayno log wuxuu soo celin doonaa keyska safe keyska maxay ahaayeen listuu soo wada geliso ma jid name and age weight iyo name okay haddaan haysano kuwaas maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay soo maaha datadii aan u baahannahay key haddaad haysto kulley horan u aragnay probis haddaan dhahno kaba soo qabo aan dharaano name oo kale haddaan dhahno means wuxuuna siinayaa name wixii ku jira soo ma taasuuna siinaya marka simple haddaa halkaan tagan marka aan dhahno for each maadaama list uu yahay for each aan ku samayn karnaa okay for each markaan dhahno deetana aan dhahno muxuu ahaaye koley consolkan iska saaro kanaan iska saaro okay for each kadibna waxaan leenahay probert ama probis ay ahayd laakiin probert aan koley probert ama probler iska dheh deetana waxaan leenahay log waxaa soo saartaa probis wixii ku jiray oo prob magacaas leh okay halkan mujeedaan probiskan koley maadaama uu mid walba list uu keeni doono for each aan ku samaynayaa waxaan iray probiskan halkan yaallo okay probka halkan aad keento keyga ah kaga soo saar datada ku jirto simple anoo ereyga ka dhigan tahay name soo saar deetana cabaar kadib haddana eri age soo saar ama kii kala soo saar macnaa anoo eri ka dhigan tahay marka halkan asigaan u daynaya waxaan leeyahay prob okay save halkan haddaan tagno maxaa soo saaray datadii oo dhan aa soo baxa soo ma simple marka halkaas maxaa ka garan kartaa kan dhan marka 3 mar aan qornay soo maahan kan 3 mar aan qornay simple marka maxaa samayn karnaa waxaan samayn karnaa inaan samayno kan sidiisa haddaan halkan u keeno ka hor simple mo inta ma xirkaa laakiin example haddaad aragtid waran meel kala duwan inay ku galaan ya meel kala duwan inay geli rabto markaas waxaa rabtaa session name markaas yani meelo kala duwan haddaad u baahan tahay taas adiga markaas si manual ah ayaad u samaysan doontaa kulley nidaamkaas un baa la maraa ma jirto hal mar oo shortcut oo sidaan oo kaleeto hal mar ugu hagaagayso waayo designkaaga ku xiran tahay iyo waxa aad rabto haddeertaan anaga data isku wada mid ah iyo hal qaab u muuqanayso laakiin haddii maanta laba muxuu ah grid kala duwan style fara badan meesha ku jiro waa kugu adkaanaysaa inaa hal mar kusoo wadaysid marka halkan maadaama list ay tahay listigan halkan waxay naga rabtaa datay naga rabtaa soo inta waxaan leenahay kaba soo qaad waxaan rabnaa inaan listiga halkan ayadoo lista inaan halkan kasoo muujino xogtan maxaa la samayn karaa on displaygan aan kusoo daabacno halkan marka for each halkan isticmaalnay laakiin halkan maabaan isticmaalnay waayo for each waxba ma soo celiyo halkan haddaan dhaho log haddaan dhaho kaba soo qaad ama aan dhaho conist datana halkaasoo kale aan dhaho kaba soo qaad kan aan comment iska saaro halkan waxaa yiri log intaan dhahay data comma the data si xoogaa yara u muuqato kana ilan loogaya fara badan samayn doono the data save
halka hadda tagna muxuu soo celiyay undefined waayo for each waxa ma soo celiyay sax marka halkan waxaan rabnaa data ina halkan ka muuqata rabnaa saa darteed waxaan isticmaalnaa map halkan hadaan dhaho map save halkan muxuu keenay oh sorry ilaahday nothing okay map kulli wuxuu soo celiyaa map hadda fiirso hadda wuxuu soo celiyay soo jidan listigu soo celiyay laakiin listigaas undefined maadaama console aysan waxba soo celinin sax console waxa ma soo celisay laakiin haddii probes kaliya aan halkan kaga tago soo qabo kanaan ka dhaafay loo gareynayo waxa soo dabcada waxa halkaas ku jiro halkan muxuu keenay listiga waxa ku jiro dhammaad macnaa map return inuu leeyahay laakiin for each return ma laha marka halkan aan tagno meeshaan rabnaa inaan ku bedelno marka intaan soo qaadaynaa intaan soo koobiyeynaa cut gudihiisaan galaynaa markaan galno ayaan halkan waxaan ku sii deynaynaa kaas marka inta markaan ku sii deyno kan waan bedelaynaa bedelkiisa waxaan isticmaalnaa display oo si xogta HTML-ka uga soo dhex muuqato halkan marka display aan keensanaa deetana kaasaan ku xirana marka label waxaan ka dhigaynaa keyga okay probkan waa keygi laakiin prob bracket kadibna keyga hadaan isticmaal maxaa keeni doonaa tadii keeni doonaa macnaha halkan prob leelanahay prob markaan dhaana keygi waayo soo maakan ya okay macnaha halkan waxaan dhahay sidaan markaan dhaano kulli waa aragtaan soo mayn okay sidaan markaan dhaano probkan macnaha waa kan wuxuu ka dhigan yahay keysku soo celinaya soo maakan keyska lagu soo bandhigaya soo maa iyo value-ga asagana ah probes kadibna keyga oo ah probka macnaha okay safe intaas iyadana waa kaaga filan tahay inaad qorto muxuu ahaa sheekadii dheereed safe aan dhaano halkaan tag maxaa halkaan soo baxay laakiin halkaan kulli error imaada errorka waan arkaynaa laakiin halkaan waxaa yimid sida datada lise oo ku muuqdo ku keeni doonaa nameka data waa noo koraya laakiin hadda uu uga hooseeya waayo datadeena waxay u muuqataa qabkaas listigeena ilaa noocaas asoma marka noocadaas ku keeni doonaa marka kan waa manage gareyna haddaad tirahdo koraan geena xoogaa inaad samaysida noqonaysaa inaad halkaan aad manage garaysid oo tiraahdo if iyo else iyo shaqooyin fara badan inaad geshid same okay waa fahmi kartaan soo maa halkaan marka error keenay kolley keygan iyo wuxuu yahay markaan waxaan si fiican uga hadlaynaa muxuu ahaaye markaan ka hadlayno muxuu ahaa virtual damka iyo waxyaabaha noocaas oo kaleeto laakiin hadda mid ogow keygan wuxuu u baahan yahay constant means wuxuu rabaa list maadaama ay tahay wax walba oo list ah oo aad yacni array laga soo akhrinayo wuxuu u baahan yahay in unique id in la siiyo marka id u baahan yahay marka id-ga bedelkiisa waxaan iska isticmaalanaa index laakiin this is not good practice inaad indexka kana isticmaasho halkan map markii la dhaho wuxuu ka koobnaa datada current data iyo indexka la marayo macnaa meeno labadaas ahaa iyo mid saddexaad haddii keenana listigoo dhan u ahaa marka halkan waxaa leenahay key waxaad isticmaashaa indexkaas isticmaal marka kan unique uu rabaa every maadaama kan saddex mar uu noqon doono soo mid walba wuxuu u baahan yahay inuu unique ahaado uu dato yacni kulley virtual damka iyo sheekooyinkaas markaan ka hadlayna si fiican u fahmayna kan marka key u samaysanayaa si hadhowti uu componentigaas uu u ilaaliyo virtual damka okay marka keygaas assembly loo baahan yahay inaad saas u samayso haddii kaleeto errorkaas kuu soo muujin doona key haddaan ku daro errorka yeah iyaga dhan way soo aqrinayaan soo jeed laakiin errorka wuu iga saaray macnaha laakiin waayo midkan waa 1 mid ku xiga waa 2 mid ku xiga waa 3 laakiin laba key isku mid ah minus id ka dhigantaa waayo kan waa list soo ma id ka dhigantaa macnaha hadhowt kolley list walba keeni doontid maadaama list u isticmaali doonta hadda object ana iska isticmaalay laakiin list maadaama uu isticmaali doonto list walba id uu leeyahay waayo database laga soo akhrinayaa database-kaas xogta laga soo akhrinayaa key uu leeyahay laakiin indexkan waa isticmaali kartaa is not good practice okay haddaad itemkan aad diliido itemka kaba soo qabo 3 item waaye itemka labaadoo kale la diliiday haddana waxay noqonaysaa reassignment in lagu sameeyo waayo listigan kan wuu isbedelaya moo wuxuu noqonayaa 1 2 uu noqonayaa bis waayo haddaad 3 u ahaa sooma ama 4 u ahaa
wuxuu noqonayaa tirada waa soo yaraanay marka mid walba muxuu noqonayaa inuu listiga keygu waa data wata ID-gu wata maana ID cusub inuu qaato waa adigoo jaamacadda dadkan qof markii jaamacadda laga diliido ama uu ka baxo kaleeto in haddana dib loo soo raro ardada oo dhan la yiraahdo waxay ID-giisa ka sarreeyo oo dhan gadaal soo aadaan kaba soo qabo 270 tahay qofkii waxaa baxay 269 baxay okay adiga 270 ka soo guur 200 iyo waxa imaata 69 adoo ku dhaxwa okay bil walba marka ID cusub qaadan leed marka taasoo kale waa faa'iidada noocaas oo kale leedahay waa adoo listigan kan la diliido kulli virtual damkan ku arki doonaa item ka hada deleted means mid walba ID cusub inuu yeesho waa that's xogaana waxa waaye performance application ki down ka dhigaysa okay performance badan ma yeelan doona application ka marka it's not good practice ina kan isticmaasho laakiin ID ga kulli waa iska isticmaal kartaa laakiin good practice ma clear marka halka marka ya كان بروب أو كيلا ده على استعمالها اسم بدلها هو استعماله سهل معناها كم mar walba waxa loo baahan yahay inuu unique ahaado waayo properties ka list ku jir doona listigana waa ID uu leeyahay sempre ID waa la isla yaqaanaa soo ma mid walba inuu ID leeyahay kulli database waxa lagu soo aqrinaa ID lahayn suuragal ma asan filay okay marka qaabkana waa gooni laakiin hadirtan object aan anaga rabnay sidaan inaan wax u qorno is not good ma fiicno inaan saan wax u qorno maadaama object aan list ku sameeyno laakiin mararka qaarkood way ku qasbaysaa danta inaan saan wax u sameeyo waayo hadii waxa aad tira badan yihiin marka halkaan uma baanin kan halkaan aan iska dhigan doonaa waxa leenahay nagada sheekadaas marabno soo darteed sida daatay saddex bay ahaayeen saddexda caadi aan u sameeysanaa culmo qodobadaas meelaha haysan okay probis noocaas way kulli adinka idin deeyn doonaa videogan kulli waa arki doontaan hadaad xooga waxa uu tuun ka galo ku laab insha Allah kaba soo qaba halkan list way kaba soo qaad kan list aan ka dhignay ay raade kaba soo qabo kana waxaan dhaanay list way kana dartan waa person one list okay list aad ka dhignay listiga marka waxaan noogu jira kaba soo qabo waa object kale kana data wuxuu ahaa kan ahaa object kale taadana keenay intaan bedela waxaan u bixiyay kaba soo qabo Aisha aan u bixiyay okay ayri 20 iyo adiga waxa tiraahdaa continuation iyo sidoo kale waxaan sameeyay mid kale asagana waxaan dhahay kaba soo qabo amin okay isagana waxaan dhahay 20 iyo laga soo dhigo fiicante ya kulli object caadi oo isticmaal doontaa wax walba oo isticmaal kartaa laakiin se kulli data mar walba halkan aad keenaysid oo list ama wax uu imaan doono waxa yaani isticmaal doontaa JSON way backend-ga xogta ka soo akhrinaysa JSON ahaan doontaa okay kulli waa arki doonaa mid yar oo waxa jiro access waxyaalahaas markaan ka hadlayno kan asoo JSON kan laakiin waxaan isticmaal doonaa server yar oo yaani development marka halkan JSON aan ku keensanay waayo xogta hadhowta aan ku tashanayno database nooga imaanayso ama backend-ga nooga imaanayso waxa waay list waa JSON waa macnaha okay marka maadaama ID uu baahan yahay kulli backend u niyeyso inay tahay okay halkan marka waxa dhahdaa datadan ID leedahay ID-ga kan waxa dhahdaa kaba soo qabo tirada noocaas oo kale ta kana soo koobiyay kan ID-ga soo dhahdaa ay raadeen tirada noocaas aan leeyahay kan ID-ga soo dhahdaa kaba soo qabo tirada noocaas oo kale ta ka marka intaan oo kale iska wadhe okay intaan list aan haystaa okay halka marka maadaama list ay tahay waxaan rabnaa inaan soo daabacno kan marka daatay wuxuu noo ahaa symbol aan soo celiyo okay yes
marka sidaanu noo aaso ma marka halkaan hal xabaan ku tashanayna markaan halka xabaan saas u expose garaynayna laakiin hadda waxaan u baahnaa list inaan celino okay halkaan marka waxaan keensanayaa diff oo aan ku raab garayn doono maadaama halkaan list ay tahay tiro badan oo data ah inay tahay saas niyadu ku hay marka halkaan tiro badan oo data aan rabnaa inaan keenno halkaan xaba keliya marno marka data ama data jimceedu maxaa okay person is leedahay ama people leedahay people taas meeno people okay before bank dhigtana bane wallah okay people saasoo kale markaan u qoro halkaan marka waxaan rabaa people-ka inaan halkan aan keeno okay people waa list soma way calibration u furnaya listigan halkan ku jiro listigan marka waxaan rabaa inaan ayaga dhan aan halkan ku soo daabaco macnaha marka halkan waxaan leenahay people dot map aan isticmaalna map muxuu soo celinaya listigii oo dhan uu soo celinaya laakiin ma isticmaali kartid for each mid walba aan data soo celinin ma isticmaali kartid okay marka listigu halkan soo celin doona listiga halkan la wada dhigi doona macnaha okay marka halkan marka waxaan leenahay person waayo people waa jamci person waa halkii qof mo maadaama halkan hal qof le mar walba u imaan doono macnaha waayo hal qof mar walba likulli iteration macnaha iteration walba uu sameeyo hal qof uu keenaya kadibna halkaas qofaa lala macaamili doona marka halkaan aan tegayna waxaan leenahay person halkan marka waxaan kusii daynaynaa maxaan sameynaynaa kan person oo macnaha rest operator isticmaal waayo aan u isticmaalnaa waayo kan hal xabo waaye halka xabo maxaa waaye waxaa ku jiro datadan kolley kan adirtaan meeshaan nooguma jiro id laakiin waa la iska ignore garaynayaa kolley inta keliya looga baahan yahay destructure lagu samaysan doonaa okay halkaan marka waxaan leenahay dot probes person okay kadibna halkaan waxaa loo baahan yahay key maxaan isticmaalnaa marka key waxaan isticmaalnaa person dot id-ga qofka uu leeyahay macnaha okay intaana safe leenahay deetana halkaan dadka maxaa la keenay dadku waa badan yihiin laakiin hal mar space aan u samaynayaa kana waxaa leeyahay style deetana waxaa leenahay margin bottom 10 iska sigay ama 20 iska sigay cid walba ka hoos okay mujaddid person qofka koowaad qofkii labaad iyo qofkii saddexaad clear واضح صح marka taas kulli practice bay rabtaa inaad practice fara badan aad samayso laakiin waa samayn kartaa in halkan tiraado nidaamkeeda aan arkayna ahayd inaad name dot class waxa soo kale waa samayn kartaa macnaha okay marka kan marka waxa waaye probes kulli intaas ugu muhiim ah probes kulli sidoo kale waxa loo baas garan karaa function okay haddaan rabo kaba soo qabo kaba soo qaad waxaan u baahanahay هو هاي كبسوا قبو وحاربا ما كاس وقت كذا كعلنا لكن هكذا قاعد كبسوا قبو وحيرا حساب إنجليزي ربا انتو كلا هنكربا معناها function إنه باس قرين ربا سو simple function هالكان مو باس قرين هالكان function اسمه function add oo kaleeto kadibna add waxaan leenahay return 3 intaasoo lagu daray intaas macnaha okay intaa marka waxaan leenahay add function qaado functionkaas waa add macnaha okay functionkaas add la yiraahdo qaado marka halkaan aan tagayna waxaan leenahay add marka add kan kulli halkaan lagama soo akhrinayo laakiin kan uu ku jira soo kana si gooniya looga soo akhriyo halkaan dan log tago add save okay inspect console kulli halkaan iska ignore garay halkaan waxa waaye wuxuu leeyahay waxaad u yeertaadan isticmaaluna jiro amal uu leeyahay macna waxaan soo import gareystay isticmaalo hay marka function kan halkaan yaalo waano function kan waa u yeera laakiin ma isticmaal variable kan u yeera waan isticmaal macna taas ay ka dhigan tahay error marka halkaan mujida function ha inta function ko sidiisu ii soo celiso ma jeed
function ka marka hadaan u baahanahay inaan isticmaalo wax ay qabto waxaan u baahanahay inaan call ku sameeyo laakiin hadaan call ku sameeyo okay clear save okay data ku jirto oo function ka markuu shaqeeyo ayuu halkan keeni doonaa macnaha okay function halkan loo soo baasgaray ayuu calling ku sameeynaya laakiin waxa wanaagsan in halkan mar walba aad ku xisaabtanto inaad tiraahdo halkan function by default aan u dhiibto waayo by default maxaan ugu dhiibayaa hadda kaba soo qabo kanaan ka tiro okay lacala kaba soo qaad kan waa laga ilaawo marka waa la iska ilaawaba in add kan function kan la baasgaray save application marka maxaa ku imaanay crash okay crash ay mid applications ka delete heesada waa noo dhamaatay marka halkaan aan teganaa saa darteed ciladan seesan kuugu imaan haddii halkaan la ilaawo saa darteed seesan ciladan crashkan uusan u imaanin waxaa haboon inaa halkaan by default function aad u samayso oo tiraahdo maadaama function kaga xisaabtamayso inuu noqo soma function default iska geli okay hadda markaa save tiraahdo haddii la ilaawo no problem kole undefined iska soo gelin doonaa laakiin haddii la xasuusto oo lagu soo shubo datada oo la yiraahdo add halkaan muxuu keeni doonaa add that's it oo halkaan haddaan u waca soma halkaan haddaan u waco data wa may maqlaysan hello okay halkaan lacala haddaan u call gareeyo andoo calling haddaan ku sameeyo kan reassignment assembly lagu sameynayo soma kan goorma option kan goorma la isticmaalay optional horta waa aragtin soma kuwan yani datadan defaultiga macnaha defaultiga haddaysan data banaanka aysan jirin asagaa la isticmaala laakiin haddii data banaanka jirto reassignment yaa lagu sameynaa marka hadda haddii la call gareeyo halkaan maxaa imaan doona inta data lagu soo shubo kan markii tiradana laisku daray oo number ah number aa dhowt calling ku sameynana ayadana crash kale toona okay save soo jeed ayadana crash kale toona macnaha laakiin tan waxay ammaan ku tahay kulley qofka developerka ah yaa fahmi karo waayo qofka dhowt isticmaalayo baalkan wuu fahmi karaa halkaa haddaa saas u dul saarto wuxuu kuu sheegaya kan inuu qaadanayo functionkaasoo hee void aanan waxba soo celinin واضح اوكي وارك هلو اوكي يعني هذا كاميرا aragteen macnaha haddaan calling ku sameeyo kulley calling markaan ku sameynaya waa aragteen soma calling haddaan ku sameeyo means error u sameynayo waayo meeshaan errorkaana imaado macnaha waayo errorkaas ku imaanaya default waay defaultina waxaan lagu yaqaanaa in la isticmaalo markaanan loo yeerin markaanan waxba lagu soo shubin asagaa la iska isticmaala laakiin haddii data lagu soo shubo datada halkaas taala lagu soo shubi doona marka kan calling aan ku sameynay wuxuu soo celiyaa halkaan lagu soo shubi doonaa tira marka calling ku sameysay that's error laakiin halkaan waxay ku run tahay qofka markaas barnaamijka isticmaalayo ama componentigan isticmaalayo halkaan hadduu dul saaro wuu arki karaa waxa halkaan meeshaan yaalo okay hello okay kan marka qofka wuu fahmi karaa hadduu saas u dul saaro wuu arki karaa datada uu soo celinayo datada halkaan ay qaadanayso macnaha hadduu asi laakiin ku xadgudbo javascript waa iska soo dhaweynaya laakiinse meeshaasi uga jeebi doontaa laakiin typescript waxay yidhahdaan hadda aad loo isticmaalaa typescript qofka waxaa loo diidi doonaa inuu halkaan waxa uu rabo soo geliyo laakiin waayo error unbaa loo muujinaya macnaha intaaba xariiq ma gudguduud fara badanaa ku imaanaya qofka waa carara marka datada saxda ku inuu sameeyo isku day that's why luqadaha type safety-ga ay uga fiican yihiin luqadaha magaciisii ah dynamic type-ka ah marka typescript saasay ku timid macnaha waayo halkan waxaa laga yaabaa qof inuu si kama ama editorku isticmaalayo inuu fashil yahay saa darteedna uu aad iskaga soo guro uu function uu soo kolgarayo markaas kadibna waxaa waaye aad uu arkay kaba soo qabo wuxuu dhahay 5 lagu daray 2 ya
iska dhigi kariyaa mo saas kale uu dhigi karaa macnaha hadduu saan dhaho minus crash imaanayo saa darteed luuqadaha type safety-ga waxaas unbaa muhiimadooda ay tahay macnaha marka halkan kuley haddaad ka tagtid defaultiga la isticmaala laakiin haddaad wax kusoo shubtid waxaa kusoo shubtaa la kool garaynaya macnaha sidoo kaleeto halkan kuley meelahana kuwaana sidoo kale waxaa habboon inaad default u samaysatid si undefined ah lagaga soo shubo marka halkan waxaa leenahay default kan maadaama tiraan u baahannahay tira defaultigeeda maxay noqon kartaa age kaba soo qabo 10 oo kale taska leedahay 10 oo default aan iska siisaneen weight no waxaa iska siisanna 55 ya hello konton shan camal saas oo kale default aan iskaga shubana tan marka maxay noo saamaxaysaa hadhowt lacala haddii halkaan shaqo aan ku qabanayno oo kaleeto waxay noo saamaxaysaa inaan si fudud aan ku garan karno halkaan oo kale kaba soo qabo waxaa rabaa nameka inuu uppercase uu noqdo okay uppercase aan ka rabaa uppercase safe hadda marka symbol waxaa halkaa imaanaya asigoo name walba uppercase uu noqonaya soo name is one uppercase uu noqonaya laakiinse hadda halkaan aan ka reebo kan haddaan ka reebo oo kanna uu person keeni waayo kaba soo qabo qofkan keliya cali oo kale personka ka maqan waxaa halkaan أو comment ما يلا سيف safe كان علي وكلته حكم كان name كا كم كان مركب name كادو كم كان crash كان إيمانه وايو هل كان ده آخر سو محولي undefined ذا وحكده حقنوسه متكاس uppercase أنا uppercase بدل الجزء ها undefined ذا uppercase وبدل data undefined ذا uppercase لو مبدل كر string با uppercase لو بدل كر مركز درتيد وحاها بون إن هل كان default aad gashatid oo tiraado defaultyaas inaad muujiso si hadhow halkan lacala halkan name ay raado halkan dad fiirso muxuu muujinaya editorka string uu qaata uu leeyahay macnaha kulli halkaas luuqo ay qarina muujido string soo taasna aad u fiican tahay inaan nidaamkaas aan marto marka kan aan ku soo celiyo marka sidoo kale tana errorkaas oo kale dad rabto inaad ka sii taxadirto waxaa isticmaali kartaa null award ama null save it waxay yiraahdaan okay kan marka hadduu halkan undefined ku arko means waxa halkan jiro ayuu isticmaali doonaa halkan oo kaleeto not available ama na ama waxaas oo kaleeto wixii halkaas uga baahan tahay camal ayaa imaan doonto macnaha okay waadax soma intaas marka probis way kulley waqti geli baar kulay internetka gal raadi kulay videogana kulay internetka ku jira waa arki doontaan reference ku ahaado inaad xogaa wixii iska shaki u ka gala symbol halkaas ka raac okay waxay noo haray hal qodob oo kale difkan hadaad fiiriso gudihiisa waxba ku jiro soo gudihiisa waxba ku jiro laakiin person anaga dartan gudihiisa waxba nooguma jiraan sadarteed waxaan rabnaa personkan in gudihiisa aan datadan aan halkan kaga soo shubno halkan person aan si toos ah data ugu soo basgareynay asiga structure soo sameynay asiga gudihiisaas wax looga soo isticmaalay laakiin hadda waxaan rabaa inaanan nidaamkan dhan aanan marin kaba soo qabo person ama objectigan oo kale kaba soo qabo waxaan leeyahay section kan nuujeedaan section kan minus wuxuu ka dhigan yahay waa section ii diyaarsan colorkiisa fontskiisa wax walba nidaamkiisa oo dhan ii diyaarsan okay hadda kaba soo qabo waxaa ii diyaarsan diffkana style yar ii leeyahay oo section kan koos oo iska delete oo iska fogeyn doona macna okay marka kan stylekiisa waa ii sameeyay hadda uniyas in style fara badan aan sameeyay hal xabaan ku daraan macna laakiin aday style fara badan laga yaabaa inaad samaystid ka marka section kan reusable u rabtaa inuu noqdo meelo badan inaad section kan ka isticmaashaa rabtaa oo aanan ahayn person kaliya xogta person la inay ka soo muuqato maani xogo kale oo kala duwan laakiin style kan uu leeyahay meelo badan looga baahan yahay okay person markii la joogo asagana waa loo baahan yahay haddii section kale la joogona waa loo baahan yahay in section kan la isticmaalo waa style qurux badan aad application-kaada aad ugu talagasho ku wada marka sidaa darteed waxaa la isticmaalaa asiga waxba looguma soo baasgareeyo halkan waxaa lagu soo shubaa
childrenkiis siga waxa la dhahaa wax walba calooshaada ku qaado halkaan marka waxaan leenahay children okay children uppercase maaha lower case okay ku xisaabtan kan marka waa specific waa kan waxaa yaraahdaa ma aha custom hello marka kan ku xisaabtan custom ma aha mid aad adiga sameynaysid oo waxaa doontaa ku shubays maaha waa isticmaal kartaa mid aad sameynayso laakiinse kan waxaa waaye mar walba caloosha aad wax kusoo shubayso means waa kan la isticmaali doono children wax lagu shubi doonaa marka halkan waxaan leenahay children markaan dhana halkaan tagaynaa copy kana marka waxaan leenahay section gudihiisa waxaan ku shubaynaa kaba soo qaba h1 oo ay ku jirto hello labo waxaan ku shubaynaa waxaasoo dhan hello 1 iska soo celceli sideedaba safe maxaa halkan la keenay section gudihiisa maxaa ku jiro children واضح سمع yes children halkaas ku jiro macnaha okay marka kan gudihiis markaan rabno inaan wax ku soo shubno saanaan u isticmaalaynaa sidaan aan u isticmaalnaa kan marka sababtaan saas u yeelay maxay tahay kan lacala style waxaan rabaa in waxaan dhan kala fogaadaan oo gudihiisa ama style qurux badan ay sameeysan hadda ka soo qabo background color background color red save background color oo red ah ay sameeysan oh sorry waxyar aan kala sakiyo okay yes background red uu leeyahay waxa kale uu leeyahay waxyaabo kale to adeeg kulli style kulli ku cajibiyo ku leeyahay okay marka style kaas waxaan rabaa meelo badan in loo isticmaalo kaba soo qabadirtaan hello ay ugu jirto meel kale tan waxaan ka rabaa in aan tago oo aan keeno muxuu ahaay section kale tan waxaan ka rabaa hi okay hi oo kale to section kale aan ka rabaa in noqoto marka sida markaan dhaho minis laba style laakiin mar walba hal meel ka manage garan doona hadaa lacala waxay qancin waayay darbiyada ku wada dhagan yihiin xogtaan oo dhan waxaan rabaa inaan gudaha u soo sakiyo maxaan sameynayaa kan unbaa waxaan leeyahay baadin ilaan mid walba asigu ku dhex jira soma mid walba asigu ku dhex jira hello awal maqla yes marka mid walba asigu ku dhex jira asigu unbaa waxaan leeyahay 10 save ayaga dhan wuxuu soo sakinaya guduhu soo sakinaya soo ma jeedid marka general means section good ama meel yani environment good haduu ku jiro waxaa la isticmaalaa kulli children macnaha okay kan marka waxaan u isticmaalnaa children lacala waxaan rabaa section waxaa ii samaysan gaba soo slider oo kaleeto sliderka kulli sawirro leh ama meel gooniya unba lama slider gareeyo sidaa darteed section waxaa la samaystaa ama component waxaa la samaystaa oo caloosha wax ku qaadana caloosha wax walba ku jiro iyo slide ku sameyn doona hadda meelahan fiiriso kulli react slider haddaan dhaho kulli horaa loo diyaariyay don't worry react slider waa kana iska maahan swipe baan rabaa swipe okay kulli kana aad ugu caansan library-gana aad loo isticmaala library-ga haddaad fiiriso halkan maxaa ku jiro section iyo halkan wixii sliding-ka lagu sameyn lahaa muujeedaan shaashadeed kan marka wuxuu haayaa wax walba functionality oo sliding sameyn lahaa oo dhan logic oo dhan ku jiro wixii wax dhaqdhaqaajinayo dhan ku jiraan soo advanta ma halkan waa wixii la dhaqaajinay halkan any component halkan ku jiro dhan waa la dhaqaajin doonaa means marka halkan raabin way data functionality-geedu noo raaba gareysan iyo meel noogu jirto amal waa macnaha markaas waa leeyahay soo marka kulli waa arki doonaa kaas marka halkan raabin aan ku soo sameynay kan marka meelo badan aan uga baahanay inaan ka isticmaalo kulli marka wax sameynayna waa arki doonaa children marka noocaas waa children ma aha mid yani custom ah ma aha hadda halkan ka dhigo c capital halkan c capital haddaan ka dhigo means it's not care ma imaan doonto childrenka wax kugu jiro ma imaan doonto saa darteed halkan waa sensitive means data aad adiga manage garaysid ma aha childrenka wax ku jiro
waxaa waaye attribute-gaas leedahay ama keygaas uu leeyahay magacaas uu leeyahay clear waa sama yes section marka noocaas waaye section waa noocaas okay sidoo kale mid niyadu ku haay haddaan u baahanahay kaba soo qabo inaan halkan wax ka soo baas garay halkan kulley value clear lama soo baas garan karo iyo function iyo object clear lama soo baas garayo waxaa lasoo baas garan karaa kaba soo qabo tag dhanaa lasoo baas garan karaa okay halkan haddaan yaraada kaba soo qabo waxay ii soo baas garaysaa header okay headerkan waa tag dhan waaye halkan marka waxaan leeyahay header okay headerkan intaan tagay waxaan leeyahay header uu qaadana soma headerkan marka waxaan leeyahay diffkan marka waxaan leenahay style and color and background color and gray ama red ama blue aan yaraade blue gudihiisaan tagay waxaan dhahay span data something okay soo ma jeed halkan waxaan soo baasgaray tag dhan aan soo baasgaray symbol waa ayadana waa lasoo baasgaran karaa shardi maaha in lasoo baasgaran karo function object ama data kaleeto waxaa soo baasgaran kartaa haddaa u baahan tahay component guud caadi usoo baasgaran kartaa clear yes intaas waa ila fahanteen soo maa intaasaa marka waxaa waaye wax walba oo jildarayn la yiraahdo iyo probis la yiraahdo intaas waaye macnaha wax kaleeto hadirtaan aan filaya inay aan ka tagay umalaymaa inay jiraan kulley waa ila fahanteen soo maa qodobadaas marka halkan waxaa rabaa marka kulley barabuskayga mahan waxaan inaan saas u sawro kuwa ma rabin waxaan rabaa hadaatay kii hadaatay waxaan sameynay person uu noo ahaa laakiin hadda waxaan rabnaa inaan daytada halkan ku keeno marka taas kulley waxaan u daynayaa adinka idin daynaya inaad saas samayn kartaan iyada symbol kulley practice yar rabtaa halkaanaan tegaynaa waxaan leenahay bracket markaan furno waxaan leenahay people waayo kan saddex maraan u baahannahay waayo saddex objecti saddex person aan rabnaa inaan dhex gelino xogtooda marka halkaanaan tegaynaa waxaan leenahay people dot map deetana waxaan leenahay person kadibna waxaan leenahay kanaan soo qabsanaynaa section okay sectionka gudihiisaan tegaynaa marka sectionka gudihiisa marka muxuu qaadanayaa saddex display okay saddex display oo person xogta ku jirto ah okay halkaana waxaan leenahay display okay paste waa saddexdii xabo aan halkan keenay marka halkan midka koowaad waxaa ku jiro label wuxuu noqon doonaa name kadib value-giisana wuxuu ka imaan doonaa person dot name person means person halkii qof aan ka raba macnaha halkii qof namekiis marka halkan intaan person soo celcelin lahaa waxaa iga roron maadaama aan ogaa waxaa imaan doono name age iyo inaan iraahdo weight macnaha destructure and directly kusoo sameeyay intaan dot fara badan isticmaali lahaa markaasaan iska saaray intaanaan soo koobiyeynayaa waxaan leeyahay paste marka halkan waxaan leenahay age deetan halkan waxaan leenahay age okay halkan waxaan leenahay midka saddexaad muxuu ah weight halkan waxaan leenahay weight okay hadda marka waa la mid kii hadaata camal waaye okay safe haddaan dhahno maxaa halkan kasoo baxaya sidii halkan laga error yeelo haddaad fiirsaan errorkan muxuu leeyahay key listiga laga tagay marka keygaas sembry keyga waxaa lagu soo shubaa root-ka ugu horeeyo ama tagga ugu horeeya lagu shubaa marka halkaanaan tegayna waxaan leenahay key that's id-ga marka halkaan ku jira intaan kasoo qabanayna waxaan leenahay id-ga qaado that's it wax errorna ma jiro applicationkana saasuu noogu muuqdaa marka halkaan jildarenka wax uga baasnay kana dartaan safe uu nooyahay maanta dartaan waxaan u isticmaalnay noocaanan u isticmaalnay iyo waxaan noogu jiraan laakiin beri waxaa laga yaabaa in meel kale markaan tagno inaan u isticmaalno section meeshaanaan tagnay section caadaan u isticmaalno waxaan dhahnay h1 and hello oo kaleeto hello حاولوا مقاعد اوكي هذا وجه ده سمع wuu isbedel hadda shaqo kale uu qabanayo sidoo kale shaqada waxay leedahay
space kiina wuu leeyahay soma wuxuu leeyahay margin bottom kiina wuu leeyahay hadda mid kale baadna xataa muu ku daran laakiin haddaa kan soo qaado halkaana keeno hello hi oo kaleeto baadinkii waa leeyahay macnaha okay save soo ma jid asiga wax badan isku soo dhaqaajiyay 20 ku dhawaada soo dhaqaajiyay clear marka kaasna waxa waay childrenka marka wax loo baasayo qaabkan waay marka wax yar maskaxdeena dejiye isku day inaad fahmi karto waxa halkan ka socdanayo meeshan list waay listigan maadaama halkan list ay ku jirto xog ah mar walba iteration walba wuxuu keeni doonaa hal person halkii persona waxaa rabaa inaan section ahaan u soo daabaco sectionka maxaa ku jiro saddexdan shay la fahmi karaan rajeyna marka insha Allah videogan reference aadii haado intaasaan kusoo gabagabeynaa caawa wax su'aale والله قاب كان reusable قاب كان مركته section reusable هذا النوع لكن ذات بيرسون كلي مركو نابورنا بيرسون كلي وحو شقيناي محو هاي كلي وحو استعماله كلي سدح ديت كلي استعماله او كلي وحلو استعمال الكري بيرسون كلي حكتيس لانه سو دابو لكن كان هذا ترانزاكشن ما انت بيرسون حكتيس انه استعمال بيرنا wax kaleeto صادم بيتنا شيء كلام استعمال كنا مركا كل كومبوننت مركا يعني أدربت أنا سميسو كفكر سي جنرال وفكر شيء كان هدي وسن جنرال فربنا هذا مقبهنين it's not problem أنا مر بعد مدول بعد كفكرت محوها سي جنرال ما حد استعمال دونتا أنا كفكرتنا ما فينا أنا حاجة وقت بدنا كعلوم هاي لكن سي واحد سلة هاي كله سي جنرال اللوجو بهني هاي سوايبر كان تصال نيسو قاتي سوايبر كان si general waa loo baahan yahay waayo data-du soo slide gareynayo maanta diff ay noqon kartaa bri image noqon kartaa saa dambeed waxay noqon kartaa xog kale noqon kartaa marba waa isbedeli kartaa xogta marka xogaha fara badan oo isbedelayo wuu ogol yahay kan laakiin haddii maanta swiper kan kaliya uu swap gareynayo kulli swiper ka soo shaqeynaa hal mar ayaan tusiyo example in maalaan oo ku jiraan rajeyna installation maraba the promise ku sheegaya really I think in maalaan example inuu ku leeyahay page kan wax example dhamalaya okay swipe كل example اللي هنا هلو اوكي هذا كله انه example كان ملينا ملان كبسوق ميشان waxaan oo kala ku jiro alqaada fiirso كان هذا هو one slide ونوعسنا سمجد براوزر مركان جيدة وراعي سمجد كم مركان ترتان ديف يكون حجرته هل تاجو وحنا يكون قرينهم لكن بري وحنا بقى إن slide كان كديجو images أنا كديجو simple أصيغون بدلايا images كشوبايا مركتاس وكل ما يستعمله وإحنا سمينا reusable إنه شيء هذا سمجد ما أنت مرة بوحة ما لسوء عندنا ما إيميجيا بدنا على السلايد كده سما مركا وحول بمركز سلايد كأوجبها أنت هالكاس كوشوش بدنا مركا والرابي معناه لكن شيء هذا يعني كل هذا بيرسون وكلته واسكاي ضافن كرتا لكن أنا حارب تصالح إن أنا يقول تصير كل ما يلا كاركود كومبوننتس كاركود وحاول يقول دونتا ليه دونتا شغلة زجوني اللي هنا يجوا واحد كلته الله استعمال دون مجرى تعامل وادي كرتا اسمه بروبلم clear marka isku day inaad fahanto children iyo sida children wax loogu baas gareeyo iyo sida probis uu shaqeeyo